Trippier outswinger. Maguire, Kane rifles it into the. Because City are on a different plane. De Bruyne, Haaland, carried back by McTominay. Red letter day. He'll get another go, and he'll twist away from Ake, and Rashford scores. De Bruyne. Benny hit by Saka. What a wonderful, wonderful goal! Bruno Fernandes, beautiful! Bukayo Saka, Arsenal ahead! Rashford has rifled it in! And السلام الله عليكم ummadda Soomaaliyeed soo dhawaada meel ka saadaafaa adduunyada ka joogtaan waan soo laabtay dabcan shaqooyin fara badan iyo hawlo gaar ah ku maqnaa hadda dib baan soo laabtay dabcan soo dhawaada halkan waa gacaltooyo show waana hoyga qabtiraha ciyaaraha adduunka ee kala duwan Premier League, Bundesliga, African League, adiga meel kasto ku badi taalo meel kasto aagi aariyada la galiyo yaala kamaldaar iyo meel kasto yaalo waanu joognay soo dhawaada dabcan haddaad nagu cusubtahay fadlan nagu dhiirigeli subscribe like comment share haddaad hore noola joogteen sharaf iyo karaamo korkaada soo dhawaada aynu ku horeyno kooxdii Arsenal ahayd sanadkan dabcan akoonyaashii waa jabiyeen I don't know magacaltooya lacag soo diray lacag fiican ay bixinayaan Declan Rice durbaba waa la wareegeen oo lacagtii waa lagu heshiiyay oo dabcan sanadkan Arsenal adiga ciyaar ma rabaan hubbay rabaan nuclearkii ugu dambeeyay inay Premier League ku galaan kooxdii Chelsea aan oran jiray yana Caicedo ay qaateen waa ciyaaryahan u dhashay kooxdii Arsenal oo dabcan hadda go'aan rasmi ah qaatay ninka ragana waa ninkii go'aan gaara Arsenal waxay tiri dhaawacii Guardiola ay gaarsiiyay dib inaan uga soo kabto waa masti Declan Rice bay horta ilkaha ku soo qaateen West Ham waana qad burburiyaha xulka England kulli waa ciyaaryahan aad iyo aad u daayiro quality-giisu ma xumo 100% sidoo kale kooxdii Chelsea quality ahaan iyo wax kasta isku dhaam Chelsea Caicedo la soo wareegtay kooxdii Arsenal Chelsea bay hadda way ka minaha Chelsea bay target ka saaratay yarkii Jarmalka hay kala Hayfad bay ka rabtaa kala Hayfad waxa laga yaabaa inuu Imaaraat wareego taasina wax dhici kara Jorginho hore ugu wareegay laakiin dabcan kaasina inuu wareego waa laga yaabaa kala Hayfad xagga su'aad rabaa sidoo kale war degdeg ah kooxdii Manchester United 40 milyan bay bac ku soo qaadeen waxay u leeyimaadeen Chelsea Mason Mount hana la siideen Chelsea waxay tiri kuxumaan waxay ku tiri awra nin naga qalay nacla shidaan ku kamaldaari waa macnaa kubadda nacla abuuk weeye 40 milyan uma qalmeed yiraahdeen ninkan Chelsea waxay tiri 100 milyan ka yar ma rabno 100 milyan oo pound ma wadan Man United hayo ma si waa loo soo diiday xilliga sidaa sidoo kale dalka Faransiiska war iniga hayna oo ninkii Kylian Mbappe ahaa Arsenal buu ku biiri karaa Chelsea buu ku biiri karaa Manchester City buu ku biiri karaa Newcastle buu ku biiri karaa Real Madrid buu ku biiri karaa adoo waxa fara badan baa raba Kylian Mbappe waxa uu taagan yahay anigu iska kayf saaxiib PSG maadaama aad kabiirkii naga tagay anigu meesha ma sii joogayo طبعا انتينو كدخ بخين كوخا انجليزكا كوخدي مان يونايتد ahaa nin Kim la dhahay la soo wareegeen oo difaac ka ciyaara kooxda Napoli next week ayana lagu dhawaaqi doona karago laba saar waxa jira ciyaaryahano 10 kor u dhaafaya oo aan naadiyaal haysan shaqalaan ay yihiin ciyaaryahanadaas waxa kamid ah kan koobaad waa Alba waa Jordi Alba waa Spain waa World Cup player waa World Cup ma qaadan 2 euro qaaday Alba shaqalaan baa haysa Ingiriiskuna ku soo wajahan laga yaabaa sidoo kale waa ninkii Busquets ahaa waa Eden Hazard waa farbadan yihiin waa Angel Di Maria waa Saha waa farbadan meesha waa lagu dhayahay aad iyo aad hatta Ilkay Gundogan ku dar laakiin Ilkay Gundogan inkastoo la leeyahay 10 cishay nagu soo aadeyntan bishan dhamaanin baa heshiis 5 sano ah loo soo bandhigayaa maadaama uu wacdaraha uu muujiyay sanadka la yaaban yahay ciyaaryahanna fara badan bila shaqo baa jiraan waxa talaftirka hadii shaqo laysiin la meelahaas iska sii aadi la shaqo aniga waxun baa ii daranay waa aad iyo aad bay fara badan yihiin inta ka xusay magacyo kala jira qaar aan la garanayn baa jira dabcan waxa ugu magac dheer ciyaaryahannadan bila shaqada ah waa Eden Hazard Jordi Alba Busquets Di Maria iyo Saha iyo dabcan afar kala jiro iyana Spain shaqalaan baasan ay ku haysato
qargo laba saar ninkii Mbamba ahaa lagu fara badan kuma taagna kooxo badan baa u hanqal taagaya in la heli dooniyo in kale de waa laga yaabaa inuu Ingiriis ka yimaado inuu Spain aado inuu meel kale aado waa laga yaabaa sidoo kale Arsenal waxaan ku nacaysaa Saja Boy nin la dhahay soo wada meelahaas laga keenay dadka taariifta ku soo galay wiilayga Arsenal waa la kaftabkooda ku jecela Arsenal keep going balena Arsenal waxay taagan tahay nabar dambe oo igu dhici doona male next season waan isadkeenayaa koobka waa haysanaya nacla sheedaan ku yaale Haaland dambe gooliga ma dhalin doono difaac waan isdhisaya weerar waa isdhisaya dhex waa isdhisaya keep going balena Arsenal hore u soco nacla sheedaan ku yaale dabcan wali waxay noo sii socda ciyaarihii transferka ahaa ee la kala iibsanayay suuqyada ninkii Kovacic Chelsea waa ka soo qalab qaatay dharkiisina waa soo qaatay Itixaad buu yimi nin kale oo isna Chakwe la dhaho oo Villarreal oo Nigerian ah isna dabcan kooxaha Ingiriiska kooxba lama wareegin laakiin caga badan kuma taagna Ingiriisku imaan doona Pep Guardiola waxa uu dhameystiray difaaci Leipzig khadka dhexe ee u dhashay wadanka Croatia magaciisu aad buu eegyahay Guardiola la dhahaa dabcan difaacaasina isna Chelsea imaan doona wuxuuna xiran doonaa lambarku ka tagay ninkii Aymeric Laporte buu xiran doonaa dabcan waxa kale oo jira difaaciye hada warar iska soo daba dhacdacayo dabcan real ah anagu wax xaqiiqo ma soo gudbinaay wax oo malawaal ma soo gudbino ninkii Mbamba ahaana dabcan lagu fara badan kuma taagna in kastoo la leeyahay Man United Arab baa gadanaysa Arab baa hada u socotay inay galato maal galiso waan isla arki doonaa insha Allah in Arabi gadatiyo in kale oo dabcan war jira baa cakaaru iman marka waxa leenahay نادر وهذا نلتشوك تبى نلتشوك مع سنة هذا نوع سبتاي فضلا لايك كومنت شير سبسكرايب انت نوع عاون كلنا ولا الكيمعان ورتشاو because City are on a different plane. De Bruyne, carried back by McTominay. Red letter day. He'll get another go. And he'll twist away from Ake, and Rashford scores! De Bruyne! Benny hit by Saka, what a goal! What a wonderful, wonderful goal! Bruno Fernandes, beautiful! Bukayo Saka, Arsenal ahead! Rashford has rifled it in!